yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kulan la qaatay maamulada degmooyinka iyo hay-adaha amniga ka shaqeeya ayaa ka hadlay xaaladaha amni ee xilligan magaalada caasimadda ee muqdisho. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay diiradda saareen waqtiyadii ugu dambeysay la dagaalanka ciyaal weerarada kooxaha hubeysan ee dilalka iyo dhaca ka geysan jiray degmooyin gobolka banaadir kuwa ka ganacsata waxyaabaha maanka dooriya una xusay inay guulo la taaban kara ka soo hoyeen. marka la yiraahdo bariyaan waxba noo calaamadeysnay khawaarijta inaan ka ilaalino shacabkeena ilaahay waa noo suuro geliyay calaamadaha kale waxay ahayd la dagaalanka maandooriyaha iyo ciyaalkii loo baxshay gaangiska ahay ciyaal weerarada loo yiqiinay labadaas markii laga soo tago khawaarijta waxaan galnay la dagaalankii maandooriya koobka waxaa sido qaybta bari loo saafiyo qaybta bari ballanti ay qaaday way ka dhabayeen habeen walbana waxay la dagaalamaan la dagaalankii maandooriyaha iyo ciyaal weeraradii labadiba meelay saareen degmada Kaaraan waa ogsoontii nolosha ka jirta caawa kama jirto isbedel ka jiro degmooyinka kale oo lamid ana waa sidaas oo kale arintaasi aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa dadaalka ay sameeyeen maamulka iyo hay'adaha amniga iyo ciidanka booliis militaarada. sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in ay albaabada isugu dhufteen kalaabiyo lagu isticmaali jiray waxyaabaha maanka dooriya ayna ku caweyn jireen dhalinyaro isugu jirta gabdho iyo wiilal isagoona ku amray goobaha kale ee aysan weli gaarin in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u xiraan haddii ay xiri waayaan ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan. sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa tilmaamay in bishii ramadaan ee dhamaatay lagu guuleystay in la sugo amniga caasimadda isagoona sidoo kale xusay in ay muhiim tahay in hay-adaha amniga si wada jira loola shaqeeyo amniga si loo sii xoojiyo nabadgelyada caasimadda. geeska kale taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Surub Axmed Firin oo dhankiisa hadlay ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda amnigu uu u leeyahay bulshada isagoo tilmaamay in guulo waaweyn oo la taaban karo laga gaaray kooxihii dhibka ku hayay amniga caasimadda. waxa uuna carabka ku dhuftay in la sii dardargelin doono howlaha socda guud ahaanna caasimadda amnigeedii dib loo soo celin doono. oogadan leenahay kulankan caawa aynu isugu nimid caawa meesha aynu joogno ama maanta meesha gobolku inoogu dhacay inaynu hore uga socono inaynu ku darno tallaabooyin ay dadkeenu mahadiyaan oo aynu kaga hortagayno cadowga khawaarijta maandooriyaha oo asaguna cadow kala cadowga kooxaha weerarada iyo cadow kasta oo dadkeena lid ku ahaa inaynu ka hortagno tallaabooyinna aynu ka qaadno qaabkii ay nooga qaadi lahayn iyo qorshihii aynu ka yeelan lahayn aynu ka wada tashanno. kulankeena inta ugu muhiimsan waa intaas. waxaan rajaynayaa inaad kulligiin ka wada baraarugsan tihiin wada shaqayn iyo kalsooni aad ku qabtaan hay'adaha amniga maamulka gobolka banaadir iyo cid kasta oo shaqada idinla leh ayaynu heerkan ku soo gaarnay. waxaan isleenahay isla xisaabtanka iyo isku kalsoonida iyo wada shaqayntu midhahanay dhashaa midho kalena way dhali doontaa inaynu hore uga sii soconno. intaa waxaa dheer waxaa jira ciidan booliis militaar oo inagu soo kordhay rabadaanka qaarkiisii qaybtiisii dambe. waxaan rabaa inaan meeshan uga mahad celiyo saraakiisha iyo guud ahaan ciidankaasba shaqadii wanaagsanaada ay qabteen. waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo maamulka gobolka banaadir siday u soo dhaweeyeen ciidankaas oogana mahad sheegteen. waxaa kaloo iyadana rabaa inaan u mahad celiyo saraakiisha ciidanka booliiska iyo ciidanka hay'adda nabad sugidda ayaguna ka faa'iideystay ciidankaas oo sidii loogu talagalay iyo sidaan filaynay si ka sii fiican intaba ooga shaqaysiiyey una soo dhaweeyey guud ahaan gobolka banaadir maamul iyo ciidan inta ka dhaxlaba